بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan idil ahaantiin meel kasta joogtaan waxaan idin rajeynayaa iska nabad qabtaan insha Allah ta'ala toddobaadkan waxaan wadaagaynaa barnaamijkeeni nuxurka buugaagta buugaan jeclaysan toddobaadkan wadaagno waa mid ka mid ah buugaagtii aynu hore qoraalkeeda aynu wadaagnay aan jeclaystay inaan video ahaan idinkula share gareeyo buugaan waxa loo yaqaanaa The Treasury in Sunnah ama Treasuries in Sunnah كتابكن waxa qoray دكتور مصري isla markaana Mareykanka wax ku bartay takhasuskiisu yahay geologist waa دكتور صقلول النجار دكتور صقلول النجار in badan waxa uu isku hawlay inuu wax ka qoro ama wax ka daraasad ka sameeyo waxa lagu culimada ay ugu magac dareen al-i'jaz al-ilmi fi al-Qur'an wa sunnah buugan wuxuu kaga warramayaa دكتورku إعجازك علمك كجرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيك جوهر مياه دكتور كسان هراي دكتور شيء وجيولوجيستي تخصص كسان عن ملاين بيهجري بقاطي وجيولوجيا علمك يقولك يلا حريرة جيولوجيا معدنت يقولك الله حريرة مريكا أنا كبرت بوجن وحلا قري هلادي لو تكوني لحدي ملها سيال قري سببت وين الدكتور كو قري وحويا تماميا kadib markii ay bateen doodaha ay ka keenayaan mustashriqiinta ama nimanka loo yaqaan orientalismku orientalist ay ka qorayaan ay ka sheegayaan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay leeyihiin sunnadu ma aha wahyi samaawi ah oo wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam iska abuurtay xaasha baan leenahay inaguna nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma hadlo wixii hawadiisa ay raacdo ma yadiqo aan hawa in huwa illa wahyi yuha sababta marka buuga oo qoray waxa weeyaan tilmaamaya wuxuu leeyahay doodaha ay keenayaan mustashriqiinta ayaan waxaan u burinayaa si qaab cilmiyeysan ayaan burinayaa buuleeyay oo wuxuu leeyahay sida quraanku ay ugu jiraan aayado iyo suurado i'jaaz ah oo ka warramaya scientific science i'jaazka marka laga warramayo waxa waa scientific science ama aragtiyo cilmi oo imika la ogaaday oo aan waaga nabiga calayhi salaatu wasalaam suuragal ahayn in la ogaado ayaa waxa uu leeyahay waxa saa quraanka ugu jirto i'jaazku ayaa sunnadana ay ugu jirtaa i'jaaz cilmiya marka buugan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 6 wuxuu ka kooban ilaa 3 foliyam uu ka kooban yahay oo yar yar hadii la isku soo ururiyana noqon karaya hal foliyam isku noqon karaya oo weyn wuxuu kaga warramayaa marka buuga scientists sheegay doodaha mustashriqiinta ayuu kaga warramayaa 3 foliyam ka gooyon mayno inaynu 3 foliyam baaynu hal mar aan ka sameeyo nuxur ama aan hal barsamirigeeda ama soo koobidooda aan la wadaago insha Allah ta'ala waxaan qaadanaynaa toddobaadkan mid ka mid ah buugaagtaas oo aan oran karayo folium 1 ba aan oran karayo ujeedadku wuxuu kaga warramayaa ilaa iyo 28 xadiis buu kaga warramayaa 28 xadiis waxa ku jira buu leeyahay i'jaaz cilmi ah oo imika la ogaaday baa ku jira buu leeyahay qarniyadii dambe qarnigii markaa dhaafiyay kii hore labada qarni la ogaaday baa ku jira buu leeyahay buugu wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood ka kooban yahay qaybta koowaad wuxuu kaga warramayaa doctorku wuxuu kaga warramayaa dhulka iyo abuurkiisa kaga warramayaa koonkan iyo abuurkiisa ay kaga warramayaa i'jaazka cilmiga ee ku jira ee sunnada laga helay buu ka warramayaa qaybta labaad wuxuu kaga warramayaa dhirta iyo i'jaazka ku jira ee sunnada ay tilmaantay sidoo kale wuxuu ka warramayaa cutubka qaybta saddexaad ee caafimaadka iyo i'jaazka cilmiga ee ku jira caafimaadka aadamaha iyo i'jaazka cilmiga ee ku jira ee sunnada ay tilmaantay sidoo kale wuxuu ka warramayaa qaybta ugu dambaysa qaybta afraad wuxuu ka warramayaa dhulka carabta ama Arabian Peninsula dhulka loo yaqaano ama khaliijka carabta dhulka carabta oo dhan iyo i'jaazka cilmiga ah ee ay sunnadu tilmaantay buu ka warramayaa 4 qaybood volume koowaad kaga warramayaa guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 28 xadiis buu kaga warramayaa insha Allah ta'ala marka inuu waxaan qaadaynaa 6 kamid ah i'jaaziyada cilmiga ah ee ku jira oo kaga warramayo ayaan wadaagaynaa wuxuu kaga warramayaa cutubka koowaad baad soo qaato wuxuu kaga warramayaa cutubka koowaad wuxuu leeyahay cadceedda ayna saan qoraxdu maalin bay ka soo bixi doontaa galbeed ay ka soo bixi doontaa wuxuu leeyahay dhulku wuxuu velocity ama speedkii ku soconayay wareegga dhulka uu wareegayay ayaa waxa imka cilmi baarisyo ama cilmigu ogaaday ama scientific ahaan lagu ogaaday in wareegga dhulka uu wareegayay
speedkii uu ku soconayay uu soo yaraanayo oo waxaynu naqaanaa shay hadduu speedkiisii dhimo oo ama xawaarigu ku soconaya uu dhimo inuu aakhirka istaago marka wuxuu leeyahay dhulku wuu wareegaa iminka laasha kale iskuma hayo dhulku inuu wareego oo dood kama taagna waagii hore way jirtay dooda dadku ka doodaan dhulku ma wareega mise ma wareego qarniyadii hore laakiin iminka waxa si scientific loo hayaa in dhulku uu wareego oo ku wareegay on its own axis dhaxadkiisa uu ku wareego sidoo kale in dhulku uu ku wareego wareeg dhammaystiran sanadkii qoraxda taasuna ay ka dhalato afarta xilli gu iyo jilaal iyo dayr iyo xagaa ay ka dhalato afarta xilli afarta season ay naqaana ay ka dhalato wuxuu leeyahay marka wareega dhulku wareegayo speedkii uu ku wareegayay dhulku ayaa soo yaraanaya speedkii marka uu soo yaraado wareega dhulku wareegay speedkii wareegay dhulku markuu soo yaraado waxay sababaysaa in maalmihiina iyo saacadihii maalmaha iyo habeenkiina ay yaraadaan kadib taas waxay sabaysaa maalin in dhulku uu istaago wareeg uu joojiyo kadib ay awood external ah ay dhulka ku dhacdo wasay cilmigu scientific uu sheegaya awood external ah oo dibadda ka timid ay ku dhacdo dhulkii dadana dhulkii siduu marka hore u wareegaya anti-clockwise-ka imika uu wareego maalintaas clockwise-ka imika wuxuu wareegaa anti-clockwise marka laakiin maalintaas wuxuu u wareegayaa buu leeyahay clockwise-ka xagga saacadu wareegta ayaa uu wareegayaa buu leeyahay dhulku taas waxay sababaysaa buu leeyahay in waxyaabo badan isbedelaan waxay leeyihiin in haddii cadceedu ay marka hore bari ka soo bixi jirtay iminka in ay galbeed ka soo baxdo ayay sababaysaa taas buu leeyahay halkii ay ahayd inay galbeed u dhacdana in ay bari u dhacday buu tilmaamaya marka wuxuu leeyahay doctorku 1400 sano ka hor ayaa waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay in saacadda qiyaame ama maalinta qiyaame aanay dhacaynin ilaa iyo ay qoraxdu ka soo baxdo galbeed waxay calaamadaha saacadda qiyaamo ka horeeya kamid ah waliba calaamatul kubra kamid ah in qoraxdii aynu naqaanay inay bari ka soo baxdo inay galbeed ka soo baxdo ayaa kamid ah saacadaha qiyaamo waxyaabaha saacadaha qiyaamo ka soo horeeya lagu garto min calaamaati yawm alqiyaama kamid ah min ashraad saaca kamid ah wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kadib marka xadiiskii keenaya wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri la taqumu saaca yani la taqumu yawm alqiyaama لا تقوم يوم القيامة حتى تطلع الشمس من مغربها إلا أي قرحته كصوب حده النبي عليه الصلاة والسلام حليه ساعات القيامة ما يستاجسو يعني قيامه ما دعايه إلا أي قرحته كصوب حده قلبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكل وسيوه وحجري مالين تاس عد كستو جوكته ويرماني سا إلهي سبحانه وتعالى لكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى المعلم ومالين تا أنا عدنا إيمان كذا أنا أنفعني maalinta iimaanka ay rumaysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma anfacayso cidna ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamay marka wuxuu tilmaamay doctorku wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhulkan wareegaya iyo qoraxdu dhulkan ku wareegayo waxa iyo xisaabta iyo waxa ma uu gelin nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in saacada qiyaamaha aanay dhacayn ilaa iyo qoraxdu ay ka soo baxdo galbeed yaa uu sheegay alladhi ya'lamu sirra wa akhfa taas waa ijaaz kamid ah ijaazada ku jira kitaabka waxyaabaha kale uu ka warramay waxa kamid ah dayax waxa uu leeyahay dayaxu ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu leeyahay iqtarabat as-saa'atu wa shaqqa al-qamar waxa uu leeyahay wuxuu soo qaadanayaa qiso in kamid ah dadka ku islaamay quraanka waxa jira dad iyo fara badan oo quraanka intay maqleen ama akhristeen ama ay dhageysteen islaamay oo aayada quraanka kamid ah ay taasiir iyo raad ay ku sameeyeen waxa soo qaadanaya in loo yaqaan Daawud Musa Bidcock waxa uu leeyahay Daawud Musa Bidcock saa ka sheekeynay qisada ku islaamay waxa uu leeyahay maalmaha kamid anigoo waxaan ahaa uu leeyahay qof diimaha isbarbardhiga oo diimaha baran jiray isbarbardhigi jiray diimaha Soomaaliga iyo kuwa kale waxa uu leeyahay marka ama maalmaha kamid ah gurigeyga joogay waxaan soo qaatay kitaabka quraanka ah deetana waa kala furistaan saaw kala furay ayaa waxa ay soo baxday buu leeyahay aayadaas iqtarabat as-saa'atu wa shaqqa al-qamar suuratu al-qamar wa bilaaw aayada markan akhriyo waa suuragal ma aha kitaabka intan isku laabay
ayaan waxaan geliyay buu leeyahay marfishkayga ama shelfiskayga geliyay ama kabarkayga geliyay waan iska tegay beriya kabacdi ayaa waxaan anoo TV-ga daawanaya waxaan maqlay qolyaha NASA ee Mareykanka oo yiri wax aan tagnay dayax waxaanan ku aragnay calaamado tilmaamaya in dayaxu 2 jeer kala dhambalmay mar maaha 2 jeer inuu kala dhambalmay ayaan ku aragnay calaamado tilmaamaya waa hore muddo hore kadib waxa igu soo dhacday aayadda quraanka ee kitaabka quraanka ka aqriyay kitaabkii baan halkii aan maalintii saaray ayaan ka soo qaaday kitaabka ayaan kala furay tan waxaan ogaaday uu leeyahay in diintan islaamku ay tahay diinta ugu saxsan diimaha sidii baan ku islaamay uu leeyahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam way tilmaantay aayadda quraanka kaliya laakiin sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ibn kathiir markuu aayadan tafsiiriyo soo arooriyay wuxuu leeyahay quraysh ama ahlu maka ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen in uu keeno aayad nabiga calayhi salaatu wasalaam aayado fara badan bay weydiiyeen quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga warramay laakiin في هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام حويدين آيات كانوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وحو آيات وقال لي إنه ضيحي لباك كلا لي لباك شير وليبا إنه لباك كلا نقضي كدب لو اسكوا وقالوا وحيران ونص حروين وين نصن عادية وحسن يسندد وحسوي ديسان dadka musaafiriinta ay halka joogo soo weydiiyay iyaguna sidoo kale ay sheegeen alxaasil waxa sugnaatay in dayaxii imka la ogaaday in dayaxu waa hore oo dhowr qarni laga joogo inuu mar kale dhambalmay waxa su'aashu isweydiinta tahay waxa weeyaan ya nabi calayhi salaatu wasalaam sheegay nabi calayhi salaatu wasalaam yaa u sheegay waxa weeyaan alladhi ya'lamu sirra wa akhfa ijaaska saddexaad kitaab ku jira soo qaadayna waxa weeyaan wuxuu ugu magac daray qoraa waxa weeyaan dabka ka dhex kacaya badda waxaan ognahay badda in imka fulkaana ka dhex qarxo baddaas adeerkiisa biyaha ay ognahay waxa kaliya ee lagu baqtiyo dabka inay tahay biyaha haddana badda waan arkayna inay biyo tahay waxa ka dhex kaca fulkaaniya dab ay ka dhex kaca nabi calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay isagoo asxaabtiisa u tilmaamaya wuxuu la yarkabu al-bahra illa haajun aw mu'tamirun aw qaazun fi sabilillah nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay badda ma koro yani badda kuma safro illa qof xaj u tagayo umro u tagayo maahan iyo qof dagaal oo duulaan qaadayo maahan sababta nabi calayhi salaatu wasalaam uu sheegay wuxuu yiri فإن البحر وحبنا عليه الصلاة والسلام فإن البحر بدأ وحى هذا هوستي وحى هذا الضب وتحت النار بحر ضب هوستي سنوح هذا بطبعها تبيع هذا النبي عليه الصلاة والسلام حط المامية إن لببيو دحدود وكعاية ضب وحسواش سويدين تايتي وحوية وقراوني سويدينية يوشى النبي عليه الصلاة والسلام iyadoo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan lagu ahan weligii isagoo bad koray waxaan ognahay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam fi siirihi in meel kasta uu tagay meel kasta uu maray meel kasta uu seexday xataa kabuhu xiran jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qoran yihiin way dawlan yihiin ay buugta ku qoran yihiin wallahi lama hayo baa leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam weligii isagoo bad koray weligii isagoo bad ku safray lama hayo haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya wuxuu ka warramaya badda inuu dhexdeeda dab ka kacayo dabkaasna uu biyo kasii hooseeya yaa u sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam alladhi ya'lamu sirra wa akhfa xadiisku soo warinaya culimada qaar baa daciifisay laakiin waxa jira aayado quraan oo tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay wad-duuru kitaabun mastuur fi raqqin manshuur wal bayt al-ma'muur was-saqf al-marfuu' wal bahri مسجور وكان إلهي سبحانه وتعالى كنت معه في سورة الدور وكان إلهي سبحانه وتعالى كنت معه يوشى يا مركز ودين تله حقيقة إنه شاء الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى إعجاز كأفراد يعني سوق علينا كل وان دايرناي وحويا حاجة لرتا نبي عليه الصلاة والسلام وحوت نروح عيمين ليرة قونية سيدا حباسود يوحي لمده حباسود
iminka waxaa la ogaaday in ay bini'aadamaha qaab difaaca jidhka aadamaha inay kor u qaado ayaa la ogaaday. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xabatu sawda ama xabaasuudda waxay nagu naqaano in ay xanuun kasta dawo ka tahay marka laga reebo gabowga iyo geerida. iminka culimadu scientifican waxaa loo ogaaday in xabaasuuddu ay xanuuno badan dawo ka tahay, xanuunada loo waayo xitaa dawada sida kansarka iyo wixii lamid ah inay dawo ka tahay. cijaaska shanaad aynu soo qaadanayno ahna kayn kusoo qatamayno nuxurkeenan waxa weeyaan xagga cibaadada soonka ama xagga caafimaadka jidhka. soonku culimadu waxay tilmaamaan in iminka si doctorku waa tilmaamaya in iminka research fara badan laga qoray, thousands of research laga qoray. waxaa la tilmaamayaa culimadu laba xaalaba inay jidhka caafimaadka bini'aadamka inay u wanaagsan tahay soontu. laba xaalaba oo iminka la ogaaday. labada xaalo waxay tahay jidhkeenu waxaa daraasad lagu sameeyey qofka sooman iyo qofka aan soomanayn keebaa labada firfircoon ayaa daraasad lagu sameeyey. idan waxaa la ogaaday qofka aan soomanayn inuu ka firfircooni yar yahay qofka sooman. waxa weeyaan qofka sooman ayaa ka firfircooni badan qofka aan soomanayn. see loo ogyahay waxa weeyaan dadku waxay u qaataan cuntadu inay energy-ga keento. waxay leeyihin culimadu researchku wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay qofka aan soomanayni waxa uu energy-ga ka sameeya glucose jidhkiisa ama glycogen ayuu ka sameeya energy-ga, halka qofka soomani uu ka sameeyo energy-giisa fat acids ku jira jidhkiisa oo beerkiisa iyo muqiis waxay isticmaalaan halkay ka isticmaalaan glucose waxay ka isticmaalaan jidhka duxa ku kaydsan ayay isticmaalaan oo free fat acid ay ka samaystaan energy. marka waxay mada tilmaamayaan waxay leeyihiin halka qofkan glycogen iyo uu ka samaysan lahaa glucose uu ka samaysan lahaa energy-giisa glucose uu cunayo, qofkan wuxuu ka samaysanaya energy-giisa iyo duxiisa wuxuu ka samaysanaya duxiisa energy-giisa ka samaysanaya. free fat acidskuna way ka energy badan yihiin glucose. caadi loo eego scientific ahaan loo tijaabiyey free fat acidsku way ka energy badan yihiin oo ka tabar badan yihiin glucose. qodobka labaad ee soonta caafimaadka inuu wanaagsan wax weeyaan culimadu waxay tilmaamaan jidhkeena waxa soo gala thousands of poisons waa soo gala sanadkiina in hal mar poisonska iyo sumaha in laga saaro jidhkeena waa lagama maarmaan. waxay tilmaamayaan culimadu ay leeyihiin wax keli ah ee ka saari karaya jidhkeena sumaha waa soonka ay tilmaamayaan. subxaan allah. wuxuu soo arooriyay markaa xadiis uu ku tilmaamayo doctorku uu leeyahay isagoo xasan oo laakiin culimada ay u badan inuu daciif yahay. uqsu wataqanamu wasuumu tasixu au ku tilmaamayo doctorku nabiga calayhi salaatu wasalaam. uqsu taqanamu yani nabiga calayhi salaam wuxuu leeyahay duula waxaad qaadanaysaan qaniimooyin suumu tasixu wasaafiru tastaqnu ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya buu leeyahay doctorku. laakiin xadiisku waa daciif. laakiin waxa uu doctorku malaha soo qaatay inuu heshado laakiin ayadaha quraanka baa tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu leeyahay wa anta suumu khayrun lakum. qofkii musaafirka baa laga hadlayay inaad soonto ayaa kaaga khayr badan cibaad ahaan iyo caafimaad ahaan labadaba. intaasan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo. dee buuggu waa buug ballaaran 28 xadiis oo ijaaz cilmiya waxay ka dhigan tahay adigoo baranaya sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam, sidoo kale adigoo baranaya ijaazka cilmiga ee ku jira sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa fudud inaad dadka si fudud uga dhaadhicin kartid diintaada. professorada ama dadka jaamacada kula jooga ee gaalada ah inaad si fudud diinta ugu yeeri karaysid. marka dee buugga intii kale oo dhan iyo labada mujallada kale oo dhan bay idinkaan kala tegayaan. intaan buuggan buug lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.